Sheekh Cabdilxayi waxa ka hadlaysaa siyaasadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haysta waxa jira marka dad badan oo ka hadlay khudbadaada waxay leeyihiin Sheekh Cabdilxayi maxaa ku dhacay maadaama masaajidka loogu talagalay cibaado iyo in dadka lagu waaniyo maxaa keenay inuu siyaasad uga hadlo horta fikradaasi sideeday u khaldan tahay oo ana iima kala baxsano siyaasadda iyo diintu fikirka kala qaybiya waxa la yiraahdaa cilmaaniya la yiraahdaa hadaad maqashay qofkan waa cilmaani oo aaminsan waxa la yiraahdo faslu diini aan dawla in diinta iyo dawladda la kala saaro qofkii diinka hadlaayana inuu gabdhahana meheriyo furiinka iyo waxyaabaha ahkaamtiisana laga warsado masaajidkana salaada iyo lagu tukado intaas laakiin nolosha inteeda kale oo bangiga sideeba u shaqeeyaa baarlamaanku sideeba u shaqeeyaa suuqyadu sideeba u shaqeeyaan inayna diintii soo faragashanin halkaasna waxa laga keenay fikradda oo midna kristaanka waxay qabaan arin ah oo kaniisadda ay bari hore soo saartay dacma lillahi wa ma liqaysar wuxuu ilaahay leeyahayna oo cibaado iyo wixii ku saabsan ilaahay u daayo kaniisadaada ku ekow wama liqaysar boqorku wuxuu leeyahayna boqorka u daayo boqorku wala haado daci siyaasada li siyaasiyiin siyaasadda u daadad siyaasiyiin yiraahdo siyaasadana waxaan u aqaanaa waa maamulku inuu qof fiican ku maamulo iyo mid xun ku maamulana aqligu wuxuu keenayaa inuu mid fiican inuu ku maamulo xagee laga keenay markaan siirada akhrino oo diinta islaamka aan akhrino nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga dadka hogaaminayay markuu geeriyoodayna waxa ku xigay Abu Bakar Siddiq waxa ku xigay Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan saasay ahayd marka hadii masaajidka aan siyaasad looga hadlaynin halkaas hala la soo dagaal la yiraahdo Abu Bakar iyo Umar iyo maxay masaajidka siyaasad ay uga khudbeen Abu Bakar baa la doortay nabiga markuu dhintay kadib markaas intuu istaagay wuxuu ku ayuha naas inni wulitu alaykum walastu bi khayrikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni aniga la doortay mas'uuliyadna la dhiibay idin mana khayr badniye hadaan toosnaadana ay kaalmeeyo hadaan qalloocdana yaani itoosiya marka siyaasad halkaas laga soo gaaray taasaan daba soconaa wax la yiraahdo masaajidka lagu tukado oo kaliya halkaasna lagu qasqasto wixii la rabo oo ribaha la isticmaalo oo zinadu ha faafto oo yaan la hadlin taas meesha aan iiguma jirto waxa ay taala ittaqillaha haythu ma kunta meel ka soo joogto ilaahay ka cabso sida masaajidka ay tahay ilaahay looga cabsado yaa waxaan rabaa baarlamaankana in ilaahay looga cabsado suuqana ilaahay looga cabsado jaamacadana ilaahay looga cabsado meel kasto inuu joogno in ilaahay ka cabsano diintu meel ay fasax qofka seenayso wallahi diintii baan fasax ka soo qaatay idinkuna masaajidka ku sii haya diinta ana siyaasi baan ahay oo xogaa waan soo yara jeeraynaya anu fikirkaas ma qabo laakiin waxay leeyihiin Sheekh Cabdilxayi meeshii maado ka dhigay waxyaabo sheekooyin oo soo qaata tusaalooyin oo soo qaata masaajidka in lagu qoslo horta ayadana ka war masaajidku nolosha muslimiinta wuxuu ka yahay wax walba isbitaal buu noqon karaa oo dadka lagu daaweeyo wuxuu noqon karaa garoon lagu ciyaaro واصحابته waxa ka sugnaatay inay nimankii xabashada dhihi jiray kaanu yalxabuna fi masjid rasuulillah isbitaal buu ahaa Saad bin Muaad teenda meesha looga dhisay ayuu yaani ku dhig baxay oo markii dambe uu ku dhintay xabsi ayuu ahaayo waa lagu xiri jiray kii la soo qabto nin dhihi jiray Thumaamah bin Athal yaa waxa lagu soo xiray tiir kamid ah tiirarka masaajidka marka masaajidku waa noloshii dadka oo dhan meesha ay ahayd marka wixii dantooda ah in looga sheekeeyo midan qosolka arrimaha ku saabsan waayahay waji macbuus meen dadka ka dhigna dadka ma ka xanaajina oo ma dadka diinteena islaamku waxay tahay marna waan tukanaynaa oo cibaadaan ku jirnaa waan khushuucayna markii salaada aan ka baxnana salaada kuma jirnee mar inay dadkii ay nastaan dadka mugtay askarta waxa la digtoonow markaas ay digtoonow ku qallafaan hadii maanta oo dhan digtoonowga lagu haayo way daalayaan marka waxa rabaa marna in digtoonow la dhaho marna la yiraahdo nasta ayaa la yiraahdaa marka arrintan aad arkayso dhan waxa waa dhinaci aha nasta marka waxa dhalinyaradu ay jecel yihiin ee masaajidka ugu soo xirmayaan waa arrintaas ayada oo hadii ayna dhalinyaradu ka helin masaajidka baahidooda dhalinyaranimo oo tawjiih la siin lahaana uu jiro meel kale oo madadaalo oo meel xun u wadaysa ayay raadsanayaan marka masaajidka maxaa dadka la isugu soo ururiyo loogu sheekeeyo oo loogu qosliyay intii la dheelahay in masaajido dhan waxay la tahay badiyo oo dadku ayna inaga fakanin oo meesha ay mashaneema aadi lahaayeen ama meel xun ay aadi lahaayeen inay dhahan masaajidka nageeya qisadii iyo sheekadiina waan ka soo heleynaa salaadiina waan ku soo tukanaynaa fikir saliim oo toosan oo ah sida nolosheena adduunyo u qaabaysan lahayna oo ama xagga siyaasadda ha ama xagga arrimaha bulshada oo haytan waan ka soo heleynaa waa fikrad aan aaminsanahay aan u arko meesha laga sixi karo wasiiladana inay tahay wasiilada soo jiidashada ma jiirka ma ka caqli yartay jiirka waxa markii hore inuu xaqaniino horta wuu afuufaa
markuu iska afuufo oo qofkii uu seexiyo markaasuu qaniinaa marka qof markaa inaad wax u sheegto horta waa la diyaariyaa qofkii oo faraxsan oo qanacsan ayaa wixii la rabay in loo sheegaa laakiin qofka asoo Facebook ugu jira oo aan qalbigiisa kuu furin oo yani kuu xanaaqsan haddaad maanta dhan wax ku akhriso waxaa laga yaabaaba inuu ilaahay kan maryaa kaa fasaxo wayna dhacdaa oo masaajidada aragtay qaarkood markii salaada jumcada laga baxo inta laga baxaya dhib ku ah assalaamu calaykum marka la dhaho mid kale kabihiisu sii qaadanaya maxaa yeelay qofkan raba inuu wax u sheego yaa waxaa laga yaabaa baadidii ay raadinayeen dhalinyaro inayna khudbadiisana ka helin su ula hadlayana aysan ka helin marka inay kabaha boobaan oo cararaan miyaa fiican mise hadda waxaa dhacda masaajidka aan khudbada ka akhriyo markii salaada uu buuxsaa masaajidka oo banaanka lagu tukadaa markii salaada laga baxo soo dadku hore uma sii baxaan oo xaafadooda ma aadaan khudbadaas tacliiqaas ay u dhageystaan yaa qaar badan oo ka mid ah hor allay gudaha masaajidka u soo galayaan waxaas maxaa keenay bal xigmad meesha inaad maanta ka qaadato inaad faraxdo inaad qosasho marka ilama ah inay dhib ku jirto arrintaas iyada waa tahay sidoo kale waxaa jira khudbooyinka aad soo jeedisid weliba waxaa jirta khudbo caan baxday oo uga hadashay 10 madaxweyne ay Soomaaliya madaxweynayaasha badan ay leedahay marka khudbadaas waxaa jirta in la jaray oo sawirro la saaray ama khudbooyin kale oo akhriso xitaa dad lagu ataagayo oo la leeyahay Sheekh Cabdi weerar wuxuu ku qaaday qof hebel ayaga naftigood sawiradaas iyo muuqaaladaas iyo codadkaaga la adeegsanaa sidoo aragtaa waxaan u arkaa yani meeshan u wada meel aan ahayn oo la aaday dadkan waan u sheegayo dadku dhan way ogyihiin taas waa laga dheregsan yahay marka sawirada la saaraayo iyo hadallada la sameeynayo sawirada anagu ma saaro hadallada lagu qoraayo oo maxay ahaydey ataa ku qaaday weerar ku qaaday marmar waxay dhahaan kabaha la dulmaray anu masaajid ayaan ku jiraa kaba xataa ma qabo si aan marka dad kaba ula dulmaro meesha maba ku jirtaba marka qofkii asagu ciwaano kale u sameynaayo si kale marka asagu si laastigi oo kala jiidaayo kaas asay u taalaa laakiin aniga wixii macnaha ummadan dan u ah anoo qof gaar aan ku wadin ayaa waxaan uga hadlaa mabaadi kore oo ay dadku ku midoobi karaan oo qofkii xataa asaga si wax u arkaaya markuu fiiriyo in asaga naftiisa dantiisa ay ku jirto midna wadankeena dagaalaha ka socda waa la isdagaalaa markaan ka hadlo ilaa midna dhiigga muslimku waa xaraan yaan la isdilin qof kasta oo la dilaayay ayaa ku jira yaan la dilinti marka qof walba asagan u daneeyay misasaan ka soo horjeedaa arrintiisaas waxaan ka hadlay qof muslima xaq darro looma dili karo waa xaraan dhiigiisu marka qof kasta oo xaq darro wax u dilaayay waan la hadlayo oo ka dhaaf waan leeyahay inaan magacyada sheego hebel weey iyo hebel weeyana yani xigmadaba kuma jirto oo sida Nabi sallallahu alayhi wasallam aan ka baranay wuxuu dhigi jiray markuu arrin sheegayo ma baalu qowmin dad waxa sameynay maxay ka wadaan laana qofka markaad si dadban ugu sheegto iyo markaad si toos ugu sheegto saameyntu waxa laga yaabaa inay kala duwan tahay marka sidaad u tilmaamayso waaye waxyaabahaas ama ciwaanada loo sameynayo ama sawirada lagu dhajinayo yani kanaalka ku dhajiyay ama qofka ku dhajiyay ayaa iskale anigu waxaan leeyahay warka aan ku hadlay dadka qaarkood waxa jira intay ciwaan u sameeyaan oo dadka inuu ku soo jiitaan ay rabaan yaa markii ciwaankii la furo wixii kor ku soo qorna ma basheegi maana ma ku jirto marka dadku hadda xilliga ma la joogo maadaama intii baan la iska sheego ama hal dhig wax lagu maqli jiray yani maanta adduunka qof walba wuxuu yahay waa la ogyahay marka yani qofkii gaar asaga wax u sameeysta asaga ku kooban tahay aniga ma ah laakiin caqabada kaaga imaado ma caqabada ma mushkil ma jirto dadkii laan way fahamsan waxaan markii qofka inuu dhageysto la raba warka marka inta la dhageysto wixii meesha ku yaalay looguma tagaayo haddii wixii meesha loogu tagi lahaa markaas mushkil ka imaan lahayd laakiin marka waxa la fahmayaa nooc yani dadku ku soo jiido oo ha ku akhristeen yani muuqaalkaaga in ciwaankan looga dhigay mid yani sidii gudaha loogu tagi lahaa si ka duwan ah qofkaas marba ka wardoon intuu dhaw qofkan intaas yara kirigta loogu siinay laga yaabaa inuu badanaynaayay markii gudaha loogu tago oo la arko wixii meesha ku qornaa inaysan gudaha lagu sheegin qofkii asaga dhow ku ceeboobay dhahay suxun ayuu wax u qortay meeshaasna dana ayuu ka raadinayay danihiisana uma soconayaan almuhim waxa qofkii khayr wada khayrkiisaas ilaahayna wuu ogyahay niyadiisana ilaahay baa og sidoo u wado saasaana fiican in niyada la isu wanaajiyo waxa isku dirka keenayo oo ama qof kale lagu xumeynayana qofka saas sameynaya ayaa baaq u baahan in yiraahdo saaha sameynina wayna dhacday ficlan kuwa intay saas sameeyeen aan xiriir la sameeyay
oo markii dambena ka garaabay oo yiri maxay ahayd anaga sameeynay laakiin waana khaldanay hadda ka bacdina ma dhici doonto marka bulshadan iyo social media wax walba ku jira dadkuna isku wada mid ma aha nooc walba oo dad gaal iyo muslim ku wada jira marka wixii meesha lagu arko ama si xun loo qoro qofkiisa in loo daayo oo yiraahdo qofkaas asay ku noqonaysa saayaa fiican laakiin hadii la israac raaciyo kana saan yiraahdo waxa saas dhahayna adigu aadan ogeyn oo adduunka oo dhan meeshan lagu soo wada dhigayo marka dambe adiga ay dib kugu noqonaysa marka wixii khayran adigu sheeg inta wixii ka dambeeyana qofkii soo u qaadanaya asaga go'aankeeda iskale